orgi geesa toorla iyo gaabacad ku heli maysid gees kale ka haneed gees kale halkan kuma jirti meel kale la doono dhinac kale ka haneed ka baar bay tiri hay wuxuu yiri cambaray gojaxadii gosha kuugu laabnayd gooska waxaad ku haysaba gibishaad ku daahaysay iyo go'aad saartay qarin waayo awalba waad gelgelanaysay inaad tahay qof gadaweyn oo guul u samafalay geeraarka dulcodiisa gabayga marxaatiya da'biiba isna soo celinay waa su'aalo gooday bariga gaanka aan ahay gobolada isaaq dago gama iyo ilaa xeeb guuf magaalo laga keenay geediyo wax awsara labadaba ku gaabteen gocasada iyo heliga iyo midha garaska quuteen ilaa tan tiraan oo garas ma karin kare gocasada iyo heliga iyo midha garaska quuteen ooriyaha marsiya guban gadig iyo duqsigu fulay gaajada la xoodmeena gabalka uu dam noo yiri reer hawdna gobta aha laga gaata qaalmaha ragii margambiye jiray iyo maxamuudna garan waayay adigu gaafka caynaba iyo damalkii gamaadeed iyo gobkii ku yilma xaniyo mas galaalan baata sidoo waxa gorayada iyo guugure heenkiisa iyo geedla baad marisa ilaydaada wax sheega anagu weynay garaska la cunay wax kale la waayay xeeb aabaan joogno dekada midhan bay leedahay adigu deedaada maxaad marka hore isu qarinaysay sheekada odayga margambiye jiray weydiiyo garan waayay ragii margambiye jiray iyo maxamuudna garan waayay adigu gaafka caynaba iyo damalkii gamaadeed iyo gobkii ku yilma xaniyo mas galaalan baata meelahaasna waa meelo da'weyn oo caynabi waa adiga shar sugantan badan bay ku jirtaa waceel aad u da'weyn gobka leeyahay maxana waa gob da'a dhowr qarni gamaad isna waa gob kale oo isna muddo dheer ee maskuna cimri badan bisna jiray waa mas galaalan baa tahay mise ruuxa gorayada iyo guugule heenkiisa iyo geedla baad ismarisaayo iyaga ma guuraan iyagu kastaba gashaantada iyo darmaan guudka loo fiday iyo geenya qowshay ka dhiga goblan iyo ilaa silic iyo bariya geeri ka ahay maxay galangal hiireed iyo soo joogtay goobaas ايوه هذه كل هذا يا الله maxay meel lagu jabay soo joogtay goblan iyo ilaa silic iyo bariya geeri ka ahay maxay galangal hiireed iyo soo joogtay goobaas inantii waxay tiri ambaro intaan kuula iyo qooq iyo ku kabtay lahaa qow intaan buur intaan koro riyaha kaalay oran la anoo fiiq karo kale kubka intaan ka jabila ilaa ka soo dhacaya intaan kaba qaraafici oo la karkaray cagalin la intaan kulan intaan dhila xigtada garaso karin la intaan ubad kariiri oo kaliya buuran sidan la horre malaaninka arkay aragii waa nin gaaban oo madow oo aad u gaaban inantana de quraxa ugeed buu wax la oran jiray laanta bari quraxa ugeed anigu waan la kulmayo de reeriya firka waan reer aad qurux badan warana waa nin gaaban oo madow dadna saas oo waqti waxa walaa dikaas ku gursa waxa la tusayuun iyadoo horro kale u sidata waxay tiri intaan ubad kariyo kaliya buran sidan la ajaad yar saasan u qabto waxa yiri war maxaad fool xumada yidii dadka ما waxay u sheegtay migu masan kula qurux baad ku doodaysaa ilaahayna lahay inta nabad kariiriyo kaliya buuro sidan la kalidayda aan joogahay Kennedy Durbit sidaas aan iska gaboobay iska guumoobay kalidayda aan joogay inta ilmo fool xun dhilaa hortaan wuxuu kaga jawaabay gabadhii habeena qof lihi hir naqliya tigaad ma arkay taxriyaro hal laga dhiijiyay himira mudsataan mooyee reer hodana gurigiisa qableydnaan arago hadhow baa ku foorara hablihiina ciideedo qof han yari mahana qaade guuliya hayaan dheer iyo hardacaar kaleeleed iyo hawdaad ku raxan raadiyo jilab haraf kugu reebiyo hayla aan la maydhayniyo adigoo hariiriyada hooska giya hareed weyn oo gaajo iyo haraad qaba hiraab arax lagu kiciyo hunufaa ku guursaday iyo kulqa ubadka sidiisii waxaan ka hortaagna haadana soo joog أنا وين كاجا دقيقة مشكلة هذا أنا تقول أيام كاجا دقيقة منه يا وحي يا ده جوله هو دانك صادق أنا وحنا يا بلي بيل دردره أنا دان الله هاي وحلا هاي يا صدق وبيه بوحان waxay tiri in kastuu la aad yahay oo lama sida mawaashiga ama oo la falay yahay hantida leefo oo liqo ama aanu la rigay la laba colaadeed goobaasta leebigu maadinka la lasada lowga aanu soo dhigin mar hadii la maana ay la rayaan xiniyo ragooda libax yahay ama nacasaada ma fulayha ahaad mar hadii ninku doo iska ninun doo yahay oo kale wada marka ka sareeyo yasayo mar hadii la maanaha ay la rayaan xiniyo ragooda libax yahay lakiyay adduunyada la hawiyada seeg mooyee laga gaari waalimin oo la lawday maasadiyo laaxib baa u baxay heeste waa la yaabay inay yahow gabadh yalxiya 10 jir oo cabaariyaha ku yaal luqunta iyo laafihi iyo garaaraha iyo hidaheeda loo bogay oo kuwii istigta meeliig iyo dhaqday ladii heemal soo loodin waaye yaa tiri ladaab xariya ana leexa oo moodo riyo loo limaynayo la galay salaadii war ku daba liqdaaro waliba igu lixib noqo
lahan aad lama dhuftiyo la xawgaa lagu keen ina leelka murugoodiyo leema xaga jecelaabay mahadsanid aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkii halkaasaan maanta barnaamijkii koowaad ee aan ka qabano abwaanka yuusuf cusmaan cabdulle oo ku magac dheer yuusuf shaacir intaas ayaan cabdulle kusoo gabagabaynaynaa iyo sheekadii hurre iyo cambaroon halkii kasii wadi doono marwooyin iyo mudanayaal tan iyo intaan dib u kulmi doono ee aan ku kulmi doono barnaamijkan tixmaal qaybtiisii labaad waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo iyo nooli kulanta iyo mudanayaal habeen wanaagsan waa barnaamijkeennii tixmaal barnaamijkii gabayga ah iyo gabayaaga marti sharafka koowaad ee barnaamijku maantana mar labaad waxa weeye yuusuf cusmaan cabdulle oo ku magac dheer yuusuf shaacir waana sidaan horeyba idinku sheegay barnaamijkii labaad ee aan ka qabanno yuusuf shaacir waxaana idin daadihinaya aniga iyo cabdulle xaaji waktigan nasashada uu ku maqan yahay maxamed cabdilaahi riiraash cabdulle waad mahadsantahay maxamed daahir waa sidaa uu sheegay maxamed daahire barnaamijkan waa qaybtii labaad ee aanu ka qabanno yuusuf shaacir qaybtii hore daawadayaal si aad la socoteen ma waxaan ku soo qaadanay sheekadii dhex martay hurre walanwal iyo cambaro sheekadaas oo ahayd heelo habeen caroos ay ku kulmeen isla markaana lagu kaftamayey ninba wuxuu ku faanayey oo aad u dheerayd saa daraaddeed baan jeclanay inaan laba qaybood ka dhigno imikana waa qaybtii labaad yuusuf inuu noo soo korxaadiyey bal sheekadii wixii ay ku saabsanay bismillah horta kolley waxaa iska jira markii horena barnaamijkii hore kolley waan yar dul maraya waxaan marka hore bogaadinayaa qabanqaabada ama aan hambalyo ama mahadnaqba hadba intii ereyga ku habboon waxaan u jeedinayaa qabanqaabadii barnaamijka iyo la kulankii halkan ama soo dhaweyntii ama sidii ay u qabsoontay barnaamijkani anigoo kolleyba markii ugu horreysay Djibouti aan imaado ay ahayd waxyaabo badan oo aanan filaynin ama sawir badan oo aan haystay maskaxdaydu ay si kale noqotay ama sidii aan filayay aanay noqonin oo ay laga yaabo inay ka wanaagsanaatay marka anigoo guud ahaanba hambalyeynaya studioga TV-ga iyo shaqaalihiisa haddana waxaan sii bogaadin doonaa cabdulle xaaji iyo maxamed riiraash iyo maxamed daahir oo aan filayo inay ahaayeen salaamadii aan ku soo degay markii aan barnaamijkii hawsha gelayay waxaan kaloo isla bogaadinayaa hurre laftiisa oo ah ninka aan sheekadan ku socoto ahna ninka runtii waqtigaa dheer ilaa intaa ururiyay ee qoray ee isku dubariday isku hagaajiyay dabeetana ka soo saaray inay wax noqoto waayo in badan waxaynu ognahay cayaaraha Soomaalidu inay ama dee dhaqanka Soomaalidu iska luma inta badan oo qoraal baan jirin marka isagu dabagal badan oo sameeyay ayaa runtii ku bogaadinayaa mustaqbalkana wax laga yaabaa waqtiyadan hadii insha Allah la awoodi karo intii wax lagu bogaadiyo waana wax lagu bogaadiyo inta hawlaha qabto way yariin aad bay yariin waxaana suurtagal ah in hadii ay suurta gasho la qori karo oo la qoro waxaan u soo beerayaa mawduucan isla markii hore soo sheegnay wuxuu ahaa waxa lagu kulmay meel aroos ah laakiin sida ka muuqata ma ahan wax habeen iyo laba iyo bil iyo inta socday waxa ay wax muddo dheer la isku soo noqonayo habeen ba cayaar la isugu imanay sida ay sheegeen labada dhinacba markii aan la kulmay dhinaca hurre iyo dhinaca cambara labadaba way sheegeen mala xilliyada roobaadka ee barwaaqada inta badan ciyaaraha la qabtaa